mudanayaal iyo marwooyin dowladeenna waxaa hor yaal caqabado aad u fara badan inkastoo aanan dadaal yaraysan doonin haddana waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u cadeeyo in marka la eego sida uu u kooban yahay itaalka dowladeed dhanka dhaqaale iyo dhanka ciidan iyo security waxa la qaban karaa ay koobnaan doonaan waana ognahay waana hubaa inaan jecelnahay ama jeclaan lahayn in 4 sano soo socota aan xalliyo dhammaan dhibaatooyinka jira laakiin taasi way adag tahay inay dhacdo dhibaatooyinka badan oo idin haysta waxa ay samaysmeen 26 sano oo colaad iyo abaaro ay soo socdeen xalkooduna wuxuu u baahan yahay dhowr iyo 20 sano oo kale sidaas darteed waxaan si toos ah uga codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xallin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah ee noogu daran 4 sano ee soo socota kuwaasi haddii aan wax qabanno kuwa kalena dowladaha naga dambeeya ayaa dhamaystir doona insha Allah laakiin dowladeenna halkan anigu aan hoggaanka hadda ka ahay waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo ciisadii iyo karaamadii Soomaaliya inaan soo celiyo caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaala waxa kamid ah amni xumo baahsan dhibaatooyin bini'aadanimo sida abaaraha haatan ka jira dalka dhamaystirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed xoojinta sareynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladooda yareynta saboolnimada iyo fakhriga ragaadiyay shacabka Soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha dalka iyo kordhinta dakhliga dowladda jihaynta muruqa iyo maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed xoojinta iyo tayeenta haykalka dowladnimo xoojinta xanaanka federaaliga ah siyaasadda arrimaha dibadda oo ku dhisan ixtiraam iyo iskaashi haddii aan ku hormaro arrimaha amniga waxaan diiradda saari doonaa tayeenta qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida ama amniga ka shaqeeya waxaan hubin doonaa in ciidamadeen geesiyaasha ah ay u dhameystiran yihiin agabka ay u baahan yihiin sida mushaaharadooda qalabkooda tababarkooda iyo xerooyinkooda sida la wada ogsoon yahay ciidanka nabad ilaalinta AMISOM oo hadda nala jooga oo ay ka mid yihiin Uganda Kenya Burundi Djibouti iyo Ethiopia runtii hawl wanaagsan ay qabteen oo aan u baahnayn waxaana hadda socda oo ay buuxsantay 10 sano muddadaas dheer waxay naf iyo maalba u hureen sidii ay garab noogu siin lahaayeen dib u yeegleelidda ciidanka qaranka oo amnigeena ku filan dad badan baa ka dhintay dad badan baa ka dhaawacmay waa inaan mar walba xasuusnaano hadafkaas in badan oo kamid ah wuu hirgalay balse in badan ayaa wali harsan xukuumadaydu waxay AMISOM kala shaqayn doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo in muddo kooban hadafkaas lagu hirgeliyo oo ah dhismaha ciidankeena si ay Soomaaliya u yeelato ciidan qaran oo amniga dalkeena iyo dadkiisa u shaqeeya mudanayaal iyo marwooyin gobollo badan oo kamid ah dalka waxaa in dhawaanba afeeyay abaaro ba'an oo dad iyo dunyaba baabi'iyay muuqaalada xoolaha la'aanaya iyo dhulka xaalufay waa kuwa aad u xanuun badan
abaarahan waa kuwa soo noqnoqday iyo macaluush oo marar badan horseeday macaluul fara badan sida dhacday sanadkii 2011 haatanna laga cabsi qabo xukuumadeenna ilaan shacabka dhan waa wada leeyihiin xukuumaddan iyagaas ka leh oo kaashanaya khubaro gudaha iyo dibadda waxaan la imaan doonaa istiraatiijiyad cad oo looga waabto aafada abaaraha istiraatiijiyadaas ayaa ku qotomi doonta mabaadi'da caalamiga ah ee adkaysiga aafooyinka ama resilience intaas aan roob la'aan waxba laga qaban karin ilaan waa wax ilaahay shaqadiisa ah haddana waxaa loo diyaar garoobi karaa natiijada ka dhalata mudanayaal iyo marwooyin dib u heshiisiintu waa geedi socodka soo bilowday 12 sano ka hor welina way socdaan dowladeennu waxaa mas'uuliyad gaar ah iska saari doontaa dhamaystirkii dib u heshiisiinta bulsho waxaa ceeb nagu ah in sanadka 2017 ay weli kala qabsan yihiin ama kala baxsan yihiin ama kala qaybsan yihiin qoysas wada dhashay oo hal magaalo degan habeenkii la doortay soo hodintaas waa la isaga gooshay iyadoo aan cidna looga amar qaadan dib u heshiisiintu ma aha in la isa soo hor fariisto oo kaliya mararka qaarkood waxaa ka muhiimsan dhacdo iyo astaan horseeda in la isku soo dhawaado dowladeenna waxay xoogga saari doontaa dib u heshiisiinta magaalada Gaalkacyo si xal waara loogu helo waxaana u mahad celinayaa madaxdii iiga horeysay xilka oo dadaal buuxa ka geystay arintaas iyo qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo runtii aad iyo aad ugu mahad celinayno shaqadii halkaas ka qabteen ee dadka waalaha lagu heshiisiinayay dowladeennu waxay la imaan doontaa hanaan cad oo loo maro dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee ku dirirsan dacallada dalka waxaan ku kalsoonahay in wax badan aan ka qaban karno insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo wada hadalladii u dhaxeeyay dowladda dhexe iyo walaalaheen Soomaaliland waxay ahayd tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waxaana naga go'an in aan sii wadno si aan uga maray dhalino haduu Ilaahay yiraahdo